السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaanu sii wadanaynaa cashirkeenii maanta waxaanu ka hadlaynaa how to urine is formed. qaabka ay urine u samaysanto iyo sida loo soo saaro ayaynu maanta ka hadlaynaa. waxaanu ka hadlaynaa urine markaynu ka hadlayno, for example ugu horeyn waxaan isbarbar dhigaynaa laba example. markaynu ka hadlayno urine in kidneygeenu waxay ka falceliyaan hadba osmolarity-ga within the blood ay ka falceliyaan. For example waxaanu ka hadlaynaa someone is there and another one is there. waxaan soo bandhigaynaa laba qofood. waxaan dhahaynaa this one iska soo qaad, iska soo qaad stomach. waxaanu ka hadlaynaa for example qofkani this person wuxuu qaatay more water, biyo fara badan ayuu qaatay, halka uu kana ka qaatay less water uu ka qaatay. waxaynu haddaba eegaynaa kan biyaha badan qaatay iyo kan biyaha yar qaatay keebaa noqonaya mid soo saara urine fara badan. For example this is blood vessels, haddaba markuu qofku qaato more fluids, blood vesselskaas wuxuu noqonayaa laba mid, ama inuu noqdo concentration ama dilation, labada inuu noqdo. haddaba blood kidneygeenu waxay iyadu ka howlgashaa oo ay ka shaqeysaa inay balance gareyso bloodiska hyper osmosis iyo hypoosmosis midkoo yahay. For example qofkan allada fluids buu qaatay, allada fluidska uu qaatay bloodiskiisaasi ma wuxuu noqonayaa hyper osmosis mise hypo? That means it will be hyper osmosis, oo ma noqonayo concentration, wuxuu noqon dilation. That is why kelidu si ay hyper osmosiskaas ay u balance gareyso maxay sameynaysaa inay saarto more fluids, si maadaama xaggan bloodiska iyo fluidka ku batay inay saarto more water, inay remove gareyso oo saarto ayna si ay hyperkan u balance gareyso normalkiisa u keento. For example this one and this one markaas barbarino, this one wuxuu qaatay less fluid yar, waxa uu fluidka ku luminayaa also wuxuu ku lumin karaa wuxuu ku luminayaa by evaporation. ku lumin hawadan qaadanayna hawadan saarayno, wuxuu ku lumin neef ahaan oo by lungs buu ka lumin. also sidoo kale wuxuu lumin by sweating oo dhiig ahaan buu u lumin. also sidoo kale urine buu ku luminaya. this ayuu ku lumin. that's why qofkaasi waxaa laga yaabaa in wuxuu soo saarayo
ama urine uu soo saarayay ay noqoto less inay noqotoy hoos u dhacdo because of fluid fara badan ma qaadan oo water fara badan ma uusan qaadan sidoo kale wuxuu ku luminayaa by evaporation by sweating by urine ku luminaya that's why urine tiisu ay noqonaysaa less this urine also ay noqonaysaa mid concentration mid concentrate mid concentrate ayay noqonaysaa haddaba markaan u imanayn here maadaama oo more water uu qaatay qofkani oo noqday hyper osmosis in this year kinidu waxay sameynaysaa maadaama qofkan markii horeba ay biyuhu ku yaraayeen oo biyo yar u qaatay waxa ku dhaxaya hyper osmosis wax loo yaqaan that's why fluidkii faraha badnaa ee la saari lahaa kinidu waxay sameynaysaa ay hyper osmosis u balance gareyso in reabsorption soo dib soo celiso because of haddii ay xagganoo hyper osmosis ay biyihiin sii saarto it is very concentrated buu noqonayaa within the blood taas way taasina uma fiicno qofka saa darteed kalidu waxay sameynaysaa inay biyihii dib u soo celiso si ay hypogan qofka u balance gareyso in here marka la joogo kinidu marka uu hyper osmosis uu noqdo waxa uu sameynayaa maadaama uu hyper osmosis yahay inay kinidaasi kalidu inay biyo fara badan saarto si ay hyperkan u balance gareyso inay more fara badan saarto also kani sidoo kale kani markaan ka hadalno sidoo kale wuxuu luminayaa isagu wuxuu ku luminayaa baylaankiisu ku luminayaa sidoo kale sweet ku luminayaa also sidoo kale urine buu ku luminayaa laakiinse maadaama intaan uu ku luminayo sidoo kale xagana hyper ay tahay only noqon mayso inuu hyperkaasi balance noqdo laakiin kanida waxay sameynaysaa in ay more waters saarto si ay hyperkan u balance gareyso taasi waa one hal dhinac waynu isla garanay taasi waa meel oo sida ay urine-tu u soo baxdo ama urine loo sameeyo ama urine-tu ay marka hore in ay noqoto urine-tu two ways inay noqoto mid concentration iyo mid noqoto dilation ayaan hadda ka jawaabnay oo aanu sharaxnay because of waxaan sheegay qofka haduu biyo badan qaato inay kalidaas isku dayso inay fluid fara badan saarto taas kaayada soo baxaysa qofka waxay noqonaysaa mid dilation ay noqonaysaa oo mid noqon mayso jaamud oo huruud noqon mayso mid iska normal ay noqonayso cadaan this one marka qofku marka uu biyo qaadan waayo also waxaanu aragnaa marka uu kaashayo oo urine mato inay urine-taasi noqoto yellowish huruud inay noqoto sometimes qofku hadduu biyo less ku yihiinna ay huruud jaamud noqoto that is why aan hadda garanay haddaba markaynu ka hadlayno Canada aynu ka hadlayno habka uu urine-ku ku sameysmo ama ay u sameyso reabsorption ay u sameynayso ama all fluids ka soo baxayay noqon maayo mid ay wada bixi doono for example ka soo qaad
like this markaynu ka hadalno this is afferent artery and efferent artery, this is a capillary, glomerular capillary. haye waxaynu also sidoo kale ka hadlaynaa this is a glomerular capillary. This is a glomerular capillary. This is capsulis, pulmonis capsule. Okay, pulmonis capsule. This is waxaan oran karnaa waa epithelial cells and parietal epithelial cells, or visceral epithelial cells and parietal epithelial cells. This is proximal convoluted tubulus. Proximal convoluted tubulus, and this is loop of Heligas of descending column, and this is ascending column. Ascending column waxaan ka hadlayno this wider and this convoluted tubular, and this is duct, distal tubule, this duct. This is duct. haddaba markaynu ka hadlayno filtration markaynu ka hadlayno marka uu filtration ku dhaco filtration kaasi waxa weeye osmosis. This is 300 baa la sheegaa 300 inay tahay. haddaba marka aynu joogno proximal convoluted tubulus waxa dhaca reabsorption ayaa dhaca oo halka marka la joogo maxaa la absorb gareeyaa waxa absorptionku ka dhaca oo la absorb gareeyaa this is also sidoo kaleete water baa la absorb gareeyaa, glucose, sodium, waxaasoo dhan waa la absorb gareeyaa. within 65% water waa la absorb gareeyaa. marka saas oo la absorptionku ka dhaco proximal convoluted tubulusku waa the primary absorptionku reabsorptionku meesha uu ka dhaco. hadda waxaan oo dhan marka absorption la sameeyo la absorb gareeyo maadaama ay ahayd concentrationku maadaama uu ahaa 300 osmosisku maadaama 300 ahaa marka halkan absorption uu dhaco wateriskii iyo glucose. horta filtrationka markuu dhacayo maxaa la soo filter gareeyaa already wax soo baxa water, glucose, amino acid, waxyaabahaas oo dhan. but in urine marka la joogo can't see glucose laguma arki karo sababtana loogu arkaynin waxa ay tahay waxa la sameeyaa reabsorb in dib loo celiyo oo dib loo reabsorb gareeyo ayaa la sameeyaa. haddaba markaynu joogno proximal convoluted tubulusku waxa la reabsorb gareeyaa kan. haddaba concentrationku muxuu noqdaa this is wuxuu noqon uu soo dhaadhici 200 buu imaani 200 markuu imaado also sidoo kale wuxuu imaani in loop ascending column markuu joogo wuxuu noqon 400 because of still waxa la sii absorb gareeyaa water baa la saaraya water baa la saari and this is uric cycle halkaasina. haddaba waters marka la saaro here waxay noqotaa 400
in kidney waxa loo qaybiyaa cortex medulla outer medulla iyo inner medulla adu ilaa halka ay tagayso 400 bay noqon hoos marka water sii wadaba 800 bay noqon this is 400 bay noqon 800 bay noqon ilaa 1200 oo aan ka wado 1200 aan ka wado ay noqonayso dib markay inta noqoto hadda markuu halka noqdo dib bay u noqon this is hadana wuxuu ku noqoni sidoo kale 800 bay ku noqon 400 300 ilaa 100 halkaas tagto dib markay halkaas yimaado reabsorption la sameeyo wateriska waxa la sameeyo reabsorb sidoo kale calorinka reabsorb baa loo sameeyaa also ilaa ay halkan imanayso ductiska imanayso in here hada marka la joogo wateriska markuu halkan yimaado in here marka la joogo ductiska marka la joogo ductulus marka la joogo waxa uu sameysmaa more waters baa la absorb gareeyaa waxayna ku xiran tahay wateriska here interstitial tissue this is waxay noqonaysaa hyperosmolarity ama hyperosmolarity this is a concentrated because of waxa ka buuxa a lot of electrons this concentration markay noqoto waxa sameynayaan inay soo absorb gareeyaan wateriska xagan socday that is why wateriska xagan socdo laakiin in here marka la joogo waxay depend ku xiran tahay protein carrierskaasi wuxuu depend ku xiran yahay ADH ka xagan yaal antidiuretic hormones hadii uu present antidiuretic hormones uu yahay oo halkan antidiuretic hormones uu present yahay that is why waxa weeye waxa la absorb gareynaya waterkii absorb baa lagu sameyn laakiin hadii antidiuretic hormones uu absence yahay halkan more water is excretion more water ba la saari doona in here marka la joogo waxa dhaca uric cycle ba mo uricku urine cycles ba dhaca oo urine-ku waxay martaa cycles in halkan loo cycle gareeyo laakiin qofku marka uu cabo more fluids aan sheegno oo socdo this year maadaama halka ku soo harayso also ku soo harayso that is waxa la oranayaa ama dhaci doonta water permeability wuxuu ka dhici doonaa halkan oo ah in wateriska ADH ka ku xiran tahay depending on ADH ku xiran tahay ADH kaas oo ah in hadii uu present uu yahay water fara badan baa la soo absorb gareyn hadii laakiin absence uu yahay waxa la lose gareyn doonaa ama dhaafi doonaa a lot of urine halkan ka soo bixi doontaana hadhowto la mid noqon in ay tahay mid dilation ama mid concentration oo ah yellowish color jamud ama mid biyo iska normal ay noqon doonto insha Allah kulli waxaan rajaynayaa in aan wax badan ka hadalnay aanad fahanteen sida filtration ku dhacayo aad hore u fahanteen haddana aad fahanteen qaabka reabsorption ka loo sameeyo iyo habka urine-ta loo soo saaro iyo sida loogu kala duwan yahay in urine-ta la soo saaro oo hadii ay tahay in qofku uu more waters qaato in urine fara badan uu saarayo that is why ay tahay kalideenu inay ka shaqeynayso in hyperosmolarity iyo hyperosmolarity within the blood-iska ay balance gareyso marka uu hyper noqdo si ay u balance gareyso inay more waters saarto hyper markuu noqdo qofka biyuhu less ku noqdaana inay more waters ay reabsorb gareyso si blood-iska dib loogu celiyo oo from the tubular blood-iski to the blood ay noqoto saasay noqoto insha Allah usii dhaxgalmayno as master level insha Allah waxaan rajaynaynaa waayo hadaan si dib loo sii dhaxgalno oo aan ka hadashiinayno iminka xagan receptorska how to sida u marayso receptorada ka qayb qaadanaya in halkan ay biyuhu ka yimaadaan iyo halkan yimaadaan receptorada ogolaanaya tubulus-ka inay soo maraan oo ogolaanaya interstitial-ka inay tagaan waxyaabahaas oo dhan waxa jira more of receptors and protein carriers baa jira kuwaas hadii aan dib uga dhaxgashin oo uga hadashin insha Allah waxaan rajaynayaa as master level u dhigno marno in ardayda ugu badan hadda ay level fahmi karaan insha Allah marka aan dhamayno ama aan meel fiican marayna insha Allah waxaan isku day doonaa inaan mar kaleete aan qaybtaana isu bilaabi doono insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bye bye, get to the Martina.